سفر كان اليوم عبد السفر كنا وانت بيلاها ولا لها بعض السمية عمر محمود وكسب بالله من مجالات قال كعيو قبل كمدق أيها وحى وجامين إسلام بشير إسلام عبد الله وعصمات رسمي كاله جراد جامع جراد علي وفتنا وجامين إسلام بشير إسلام عبد الله وحى غير كها اسمه نودانه تناصته يمان مكدمة بورتنا وحى أنا كسر دوائي ميل وتتكلم كيلومتر ليان كسحادير جراد جامع جراد علي وحى ونقرب سعودي إسلام بشير إسلام عبد الله إسلام كي جراد كأيها وحى سلام لبح قادين بشوي كسر دوائي بيان كسحادير soo dhaweyn balaaran kadib waxaa loo soo gudbiyay islaamka iyo waftiga uu hogaaminayo hooyo garaad jaamac garaad cali waxaana ka socday muddo 2 maalmood ah shirar gaargaar ah oo la isku bariyay gudiyada ka shaqeynaya nabadeynta beelaha walaalaha ah ugu dambeyntii waxaa shir lagu wada qaatay geedka nabadda ugu horeyntii waxaa madasha ka hadlay Cabdul Cabdikariin Axmed Salebaan oo kamid ah aqalada beesha Bahar Same iyo nabadoon Xabiib Xuseen Barre oo kamid ah nabadoonada beesha Umar Maxamuud waxaana kamid ahaa hadalladoodii sababta halkan waxaa lagu kala wareegay furkii labada beelood qolada dhankeeda laga sugayay baalkan kula wareegay xafladan loo qabtay anoo ka hadlay afka beesha Bahar Same furkii dhankayga laga sugayay waxaan wareejinay 7 qori baan wareejinay odayaasha iyo uqaasha dhanka kale ku wareejinay 3 qorina way nagu dhiman tahay iyadana waa laga mudaysanay waa laga balamayaa shirka kan waa shir magaciisa loo bixiyay shirkii guusha iyo dhamaystirka dhibtii foosha xumayd ee dadka walaalaha ah dhaxmartay waxaanu ka beel ahaan anigu hadda ku hadlaya afka uqaasha reer Umar Maxamuud aan halka ku wareejinaynaa gaari gubtay hadda ka hor oo 3F ah gaariga cusub aan soo gadnay garabtaan wareejinaynaa sidoo kale to walaalaha waxay noo sheegteen ayaantii in laga furtay qoryo 9 qori ah ayagayna sidoo baan u keenay waana wareejinay wayna nagala wareegeen walaalaha iyo si farxad leh waan uga mahadcelinaynaa dhanka kale garaad jaamac garaad cali dhankiisa wuxuu u mahadceliyay islaam bashiir iyo waftiga uu hogaaminayo wuxuuna ka aqbalay codsiga casumaadda uu u jeediyay islaam bashiir islaan Cabdille waxaan u mahadcelinaynaa islaam bashiir iyo Umar Maxamuud kalsoonidayna tuseen ee noogu yimaadeen ee wadada dheer nooga yimaadeen ee ay ku soo ajiibeen casuumadii iyo xafladii iyo ilaahay uu ku yahay gogoshii aan u dhignay waa uga mahadcelinaa jazaakum Allahu khayr jaza casuumadeedana waa aqbalay Dr. Ali iyo hay'adda Liibaan iyo Fuaad iyana waa mahadcelinaya hawshii intaynu u nimid waa inoo dhamaatay inta qabya inoo ahna raggeedii baynu u leenahay ugu dambeyntii islaam bashiir islaan Cabdille oo munaasabada soo afmeeray dhankiisa wuxuu sheegay in munaasabadan lagu soo gabagabeeyay go'aamadii ka soo baxay shirkii meeyagne ay hore uga heshiiyeen beelaha walaalaha ah sidoo kalena wuxuu ka codsaday in garaad jaamac garaad cali iyo guurtidiisa inuu ku martiqaado magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug deegaankan aanu nimid ujeedada aanu nimid oo xoogeedu yahay nabadeynta ka sokow si kale faa'iido ugu yahay ragan anigu kamid ahay oo saax dheer anigu waligay ma imaan runtii waxaan dareemayaa farxad gaar ah sababtoo ah deegaan aan maqli jiray oo aanan wali arag baan maanta yimid waxaan ugu imid ehel iyo dad runtii aan xiiseynayay aragooda iyo imaatinkooda munaasabadan waxaa lagu soo gunaanadayaa shirkeennii meygaagle go'aamadii ka soo baxay ee nabadii halkaas lagu guntay khantirkeedii gobashan garaad jaamac garaad cali u dhigay annaguna aanu kusoo ajiibnay colaadaasi sidii awqaashii halkan ka hadashay ay u sheegtay waa soo dhamaatay waxaan ka qayb galay ama gobasheeda aanu dhignay shirkii ugu horeeyay oo ugu balaarnaa oo buurtida ka dhacay 2007 garaad jaamac markaas waa naga maqnaa lama joogin shirkaas go'aamadii ka soo baxay dhamaanteed waa fuleen shirkan insha Allah waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa inuu noqdo kii ugu dambeeyay waxaan rabaa inaan garaad jaamac garaad cali
u soo gudbiyo kana codsado isaga iyo guurtidiisa inaan ku casunno anoo wakiilka ah afkoodana ku hadlaya Cumar Maxamuud magaalada Gaalkacyo. shirkan ayaa wuxuu ku soo dhamaaday jawi degan. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Buurtile.